howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa xadii waxa uu cambaareeyay dilkii foosha xumaayay loo geystay 15 tahriibayaal oo ka dhacay meel dhow xeebta magaalada Sirte ee dalkaasi Liibiya iyagoo ku eedeeyay dilkaasi inay ka dambeeyeen kooxaha mukhalisiinta ama dilaalinta wax tahriibiya. qaramada midoobay ayaa dalbanaysa in kooxaha falkaasi ka dambeeyay cadaalad la hor keeno. meedadka ayaa subaxnimadii hore Jimcaha laga helay meel xeeb ah waxaana intooda badan ay ku dhinteen dooni gubatay sida ay sheegtay howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya iyo bisha Cas ee isla dalkaasi ka howlgala iyadoo weli lagu mashquulsan yahay in la ogaado xaaladda dhabta ah. haddana waxa wararka oo dhacay ay sheegayaan in dilkan uu ka dhashay isku dhex maray kooxaha wax tahriibiya ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee dalka Liibiya waxayna ku boorisay mas'uuliyiinta dalka Liibiya in si degdeg ah u bilaabaan baaritaano madax bannaan oo daahfuran si cadaalad loo hor keeno dhammaan dambiilayaasha ku lug lahaa falkaasi foosha xun leh. Liibiya ayaa ah marin muhiim oo qarsoodi ah looga tahriibiyo dadka. waa Yaxya Muuse Ibraahim Yaxya Nairobi codbahiyaha caalamiga ee Caroog TV baladka magaalada Hargeysa.